بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan doonayaa bal inaan arrin yar ama laba arrin ka hadlo didiyahay kan xagga dhoofka xoolaha asalkaba reer miyigu iyo dhoofkooda xoolihii farmaajona ma yaqaanaan xayiraadna ma yaqaanaan ma yaqaanaan iyagu waa dadka reer miyiga ah ee dantoodu ay ku jirta dhoofka xoolaha noloshoodu ay dul saarantahay neefka xoolaha ka dowladahan wax nasiib darriya wasiirkeennan gaafane ee ayaantii dhood ka hadlaayay arrimaha cadhiga iyo in la xayiray iyo in xaggaa muqdisho iyo farmaajo iyo sacuudigay fasaxa xagga doonta yidhi waddanka qaran ahaan dee inaku laba dowladood baynu kalanay aynu kala ahaanne dana badan baa iskaga kan xidhan oo iskaga kan dee xaniban ilaa imika markay se noqoto baasaboor iyo arrimahaas waa iska caadiyo da waynu doonanaa oo xashka baasaboor kale kuma tagno waa kaa soomaaliyeed baynu ku tagnaa oo waynu ogna waa ka dheregsanay haddii arday jaamacad tagaayo dee shahaadiga dee loo sameeya waa lamid laakiin markay noqoto arrimaha xoolaha iyo danta reer miyiga dee inuu si fiican ballaaran u fikreehe xilligeedii markii d b washan berberadan meeshan dee loo kootaa looga dhigay dee khaliijka hadaladiisii malaa dadweynuhu dib bay way xasuusnaan doonaane waxaa ka mid ahayd wuxuu yidhi xoolaheenna imaaraadka ayaa kontraadkaa qaadan doona xoolaheenna carafo ee carabta la geyn doona ama sacuudiga ha noqoto ama meel kale ha noqotee nimanka wakiil inooga noqonaya waa nimankaa waa markii dee layna naqsiinayey kiniinkan antibentaa ee dekedda berbera maantana waa kaale waynu dulqaadanayna waa u dhabar adeegayna war xoolaha reer miyigu reer miyigu dhabar adeega aad sheegayso waa rio dram ayaa dadka yani reer miyigu dantooda waxay ku jirtaa neefka xoolaha ninkii u sahmin lahaa ee seeladda u dooni lahaa ayaad ahayd oo adigaa dee nasiib darooyinka dhacay gaafanow waa taa aad leedahay iyadoo taasu jirto oo dhagaa dadweyneha kasii guuxayso ayaa haddana shir nairobi yarka baashi cawil miyuha yidhi shir baynu ku leenahay soomaaliya iyo somalilanna waa nasiib darooyinka dhacay wixiiba way isu kayn qabin laday farmaajo wayna cunaqabateeyey oo dagaal buu inagu qaaday si aan xoolaheennu u dhaafin ayaa ina leeday ka gadaalna haddana halkanaad markaasaa weliba uu inoo soo diray agaasimihii madaxtooyada waa nasiib daro waa shime oo wax laga xumaado weeye anuu garan maayo dee meel loo socdo iyo siday wax yihiin miyaynu falannay anuu taa garan maayo qodobkayga labaad waxaa weeyaan dad waxaan u madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne talada qaado talada jeclaha baan ku siinaya talada qaado dhagahaagu ha u furnaadaan talada mudakarka ah ee ka imanaysa dadweynaha madaxweyneha u tahay iminka waa adigii lix ilaa tanka juu yidhi waan xisbiyada kulan wada fadhiyaan yeelanaynaa maanta sabti bay ahayd kulanku u dhacay wax natiijadii kamay soo bixin waxba yaan laga meeraysanin qaado baan ku leeno cudurku waa commishinkane kala dir commishinka weeyaane kala dir waxba yaan wax kale waa haddaynu wanaagga doonayno haddaynu jiritaanka somalilan doonayno haddaynu doonayno doorasha inay noo dhacdo haddaynu doonayno in ummaddu bal isu soo dhawaato commishinkan kala dir waxba yaan laga meeraysanin fadhi waa lasoo qabtay waa la kulmay wax natiijaha dee ma jirto laakiin waxaan ku leeyahay war cudurku halkaasu yaallaa waana kuu guul baan ku leeyahay geesnimo sidii daahir yaale dee taarikhday ku jirtaa waa lagu ixtiraamaya lagu xaqdhowrayaa qarni 100 sabaana waa loo hayaa guusha iyo ku dhacaya geesnimada uu sameeyey marka waa taladana qaado cudurku waa commishinkan ee commishinkan kala dir arrinkan maayarada
raggu wuu isqabtaa ray buu isku qabtaa nidaam ahaan buu isu qabtaa laakiin waxaa ceeb ah oo aynan dhaqan u lahayn inaynu guryaha iyo faamiliyada wax ka sheegno weliba nin weyn oo mas-uula oo garhkii asxaabta intu media soo fadhiisto inuu wax ka sheego dee faamiliyada waxaas waa taariikhdii gelaysa waa waxaynaan hore dhaqan ugu lahayn waa yacni shame dhaqan waxaa umaynu lahayn raggu nidaamka ama fikir baa la ysku qabtaa ama ka nidaam ahaan baa la ysku qabtaa laakiin dee waxaa soo kale midna waan uga degayaa dib iyaanay u dhicin weliba waxaan leeyahay war xaal bixi oo kursigaad fadhida laftiisa iyo karaamadiisa laftiisa xaal sii iyo dadweynahaad u tahay maayarkaba xaal sii baan ku leeyahay ninkaa la yidhaha muraad taasu waa taa haddii aan soo qaato Hargeysa ahaan maayarkeeda isaga in laba soo hadal qaadaba may ahayn muraadkaasaa dhaama imika wadduu samaynayey leeyahay 150 oo magaalada dusha magaalada Hargeysa maraysaa hadalkiisa habeen dhawaad waxaa ku jiray waaxdan Axmed Dhagax balaanka nooguma jirto waddadaas aanu ma diidanay inay degmooyinka kale oo dhan waddooyinka soo maro maxaa se sababay in tanu hayraad saaro uu yidhaa ma soo marayso waddadaas tii siinay waynu aragnaa waa siyaad barasidu kaga tegey siyaad barasidu kaga tegey weeyaan hadda ogobay dadkaasuna waa cashuur bixiyayaal weeyaan dadkaas alla dadku wanaagsanaa gubsanaa ya ayaan dhaweyd baa nin la hadlo wuxuu yihi dawlad xun baa dhaanta waynu kala laalaadaynaa buu yidhi bal 3 sannadood ee hadhay aynu ku dul daawanno yani markuu halka sidaa ila hadlayo waa quus weeyaan moogta waa amashi xitaa quus yani rajadu dadku hadduu ka dhintana waa mushkilad moogta waa shay adag canaani way dhammaatay adiga wax lagu yidhaaba anuu garan maayo waa maayarkan Hargeysan sheegay wax lagu yidhaaba anuu garan maayo ka sharci ahaanna dee maanta waynu garanaynaa nidaam ahaan sharcigaad ku fadhidaan oo taymkiina uu dhacay xitaa kornintii yareedee dee lala soo bixi jiray ayaan jirin dadkuna nidaam dawliya oo wanaagsan oo cadaaliya ay u helayiin wayse heli doonaan ummaddana waxaan leeyahay quusanine nabadgelyadiinna iyo jiritaankiinna iyo midnimada ummadda aynu alaashano ileen ilaahay bayna badee ilaahay ayaa dayna baday wax kaloo la yidhaa anuu garan maayo imika example markaan soo qaato ninkaa maayarka ka berbera dee ninkaasu markaad eegto magaalada berbera dee way ka muuqataa inuu nin maayar mudakara iyo golo degaan oo mudakari joogaan magaaladay ka muuqataa waayo beledkoodii ay day ka ahaayeen golo degaan ama maayar uu ka ahaa dee wuu hagaajiyey lagamaba bakhaylo qofka guusha uu leeyahay waa loogu hambaliyayaa waxaan ugu hambaliyanayaa waxaan leeyahay ha kugu daydaan bal kuwanu waa inuu damiirku shaqeeyaa oo bal damiirkoodu shaqeeyaa oo yidhaahdaan war dee idala mid weeyaan ninkan we dee bal sidaa uu yeelay bal yeela marka waxaan leeyahay arrinkaa xoolahana waa markaa weeyaan reer miyigu waxay yaqaanaan neefkooda arigaabay yaqaanaan war ha loo sahan tago anugu waan aaminsanay inuu arigaasi dhoofayo anugu waan qabaa si uu dhoofoba laakiin cidda waajibaadkii xilku saaran yahay dee dadka u sahan taga iyaynaan sidii shugux horaa loo yidhi ilan ari shugux kama ilbaxo marka waa bilahi tawfiiq